waxaynu insha allah sii wadi doonaa taxanihii ka koobnaa 8 tallaabo aynu ku baran jirnay cryptocurrency-ga. Fideogan ka horreeyay waxaynu qaadanay blockchain-ka wuxuu yahay, sida loo isticmaalo iyo sida uu shaqeeyo. Waxa maanta iyaduna markaynu halkaa marayno aad muhiim u ah in aad kala fahantaan waa maxay coin iyo waa maxay token, ama tokenska iyo coinska inaad kala saari kartaan oo aad fahantaan waxay yihiin. Markaad dhammayso fideogan waxaad si fiican u baran doontaa sida loo kala saaro tokenka iyo coinka. Waxaan fideogan u kala qaybiyey 4 qaybood, oo qaybta koowaad ay tahay definitionka ama qeexidda coinka iyo tokenka. Qaybta labaad oon kaga hadli doono supply-gooda, sidee supply-gooda loo sameeyaa. Qaybta saddexaad oon kaga hadli doono waa maxay isticmaalkooda ama meelaha loo isticmaalo, iyo qaybta afraad oo aan idin siin doono tusaalayaal. Haddaba aynu u gudagalno fideoga. Coinsku waxay la mid yihiin lacagahan caadiga aynu isticmaalno, la isku bedelo, wax lagu iibsado, lagu kaydiyo value ama qiime. Coinsku waxay leeyihiin blockchain iyaga u gaara, ama blockchain cid kale ay samaysay iyagu ma isticmaalaan. Blockchain native oo ah ay leeyihiin oo isticmaal. Tokenska iyagu ma laha blockchain u gaara, waxay ku dul dhisan yihiin blockchain kale oo already jira. Tokensku waxay represent gareeyaan ama ay matalaan lahaanshaha hanti maguurtaa. Iminkoo kale waxaa laga soo qaadi karaa tokenska anigii kusoo sharaxnay fideogii hore, blockchain-ka in loo isticmaali karo waxyaabo ka baxsan cryptocurrency-ga. Marka haddii iminkoo kale for example aad doonaysa inaad caddayso inaad guri leedahay ama dhulkaa leedahay, waxaad isticmaali kartaa token si aad u caddayso. Coinska supply-gooda waxaa lagu sameeyaa ama minting process ama mining process, oo waxay qaadataa process mining oo kale ah si loo soo introduce gareeyo ama loogu soo daro coins cusub supply-gii jiray. Xagga tokenka ayna ahayn sidaa, tokenka qofka develop gareeyay ama developerskii lahaa ay ku soo dari karaan markay doonaan supply-ga. Coinska waxaa loo isticmaalaa sida lacagta caadiga, value bay store gareeyaan oo qiimay leeyihiin. Waxbaad ku iibsan kartaa, iyaga laftooda aad isku bedeli kartaa. Sidii aad lacagta caadiga dollarka oo kale aad u isticmaalaysa baad iyaga coinska u isticmaalaysaa. Waxay alternative u yihiin lacagahan aynu isticmaalnay iminkaan haysano. Tokenska dhinaca kale iyaga waxaa loo isticmaalaa dAppska ama decentralized applicationska, blockchain projectska, NFTska, waxyaabahaas oo dhan baad iyaga u isticmaalaysaa si aad u tusto inaad lahaansho leedahay NFT-ga, waa inaad tokenkeedii haysataa. Sidoo kale waxaa lagu tusi karaa tokenka inaad adigu leedahay physical asset ama asset maguurto oo ama dhul oo kale ah ama guri oo kale ah, ama inaad wax leedahay waxa ayaad ku tusi kartaa. Qaybta afraad tusaalayaasha waxaa ka mid ah coinska. Bitcoin baa ka mid ah oo aynu wada garanayno, Ethereum baa ka mid ah oo aynu wada garanayno, Cardano oo ADA iyadana coinkeeda leedha ayaa ka mid ah. Tokenska waxaa ka mid ah meme coinska oo dhan, dhammaan meme coinska oo dhan waa tokens. Waxaa ka mid ah Chainlink, waxaa kaloo ka mid ah basic attention token oo loo isticmaalo in lagu advertise gareeyo Brave browserska. Cidda Brave browser isticmaasha ama web browserkan Brave leedha ayaa ka war haysa tokenkana. Haddii aad ka faa'iiday fideogan oo aad kala fahantay sida loo kala saaro token iyo coin, please waxaad noo saartaa like-da, subscribe-na dheh si aanay kuu dhaafin fideoyada dambe aynu soo gelin doono. Share-na dheh oo la wadaag dadkii aad u malaynayso in ay ka faa'iidayaan iyaguna. Aad baad mahadsantihiin. Maalin wacan.